Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Soomaaliya Funny Media. Magacaygu waa Cabdilcasiis Moxamed. Maantana waxaan idin hayaa shanta madaxweyne ugu hantida badan qaaradda Afrika. Fadlan haddaad ugu cusub tahay subscribe saar gambalaalkan furo si aad u aragto waxyaabaha aan soo dhigno iyagoo ah kuwa ku xiisi gelin doona. Madaxweyne Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 500 milyan. Waxa uu dhashay 26 Oktoobar 1961. Waa siyaasi iyo ganacsade caan ah. Waa madaxweynaha hadda talada haya waddanka Kenya. Waxaa dhalay madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya, Jomo Kenyatta. Waa qofka ugu hantida badan waddanka Kenya. Kaalinta shanaad ayuu kaga jiraa qaaradda Afrika. Madaxweyne Paul Kagame. Madaxweyne Paul Kagame waxaa hantidiisa lagu qiyaasay in ka badan 500 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1957. Waa siyaasi iyo hogaamiye sare ee hore ee ciidanka militariga. Waa madaxweynaha hadda talada haya ee waddanka Rwanda. Madaxweyne Theodore Obiang. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasay in ka badan 600 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxa uu dhashay 5 Juun 1942. Waxa uu u dhashay waddanka Equatorial Guinea. Waxa uu xukunka hayay in ka badan 40 sano isagoo Afgembi ku qabsaday 1979. Madaxweyne Ali Bongo Ondimba. Hantidiisu ay tahay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waa madaxweynaha labaad ugu qanisan qaaradda Afrika. Waxa uu dhashay 9 February 1959. Ali Bongo waxaa dhalay madaxweynihii hore ee laga soo bilaabo 1967 ilaa iyo dhimashadiisa 2009. Waxa uu madaxweyne u yahay waddanka Gabon ilaa iyo 2009. Gabon waa waddanka shanaad ugu dhoofinta badan saliidda qaaradda Afrika. Boqor Mohammed VI. Waxaa hantidiisa lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxa uu dhashay 21 Agoosto 1963. Waxa uu noqday boqor kadib markii uu aabihiis dhintay. Waa madaxweynaha waddanka Morocco. Mohammed VI waa madaxweynaha ugu hantida badan qaaradda Afrika. Fadlan haddaad ugu cusub tahay subscribe saar gambalaalkan furo si aad u aragto waxyaabaha aan soo dhigno iyagoo ah kuwa ku xiisi gelin doona.